Salaam calaykum daawade haddii aad nagu cusub tahay fadlan noo saar subscribe like-tuna waxay noo tahay sidoo kale dhiirigelin ha ilaawin sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay laba wiil oo la kala odhan jiray Xasan iyo Xuseen waxa ay iibin jireen amaba soo wareejin jireen raashinka haddaba Xuseen waxa uu ahaa nin gacan adag aad iyo aadna u lexejeclo badan labadoodu marka ay magaalada soo galaan waxay mari jireen laba wado oo kala duwan midba wado ayuu mari jiray si uu markaasi badeecadiisa u soo gado haddaba Xuseen waa uu qeylaya wuxuuna leeyahay ayaan raashin ka gadaa ayaa u baahan raashin nin ayaa maqlay codkiisii waxa uuna ku yidhi war raashin gadow istaag waxa aan rabaa in aad iga gadid raashin markii uu isku diyaariyay Xuseen inuu iibiyo waxa uu ninkii weydiiyay qiimihii balse Xuseen waxa uu sheegay qiimo qaali ah ninkiina waxa uu yidhi war waa qaali badeecadaadu maxaa dhacay waa laga qiimo jaban yahay Xuseen waa uu xanaaqay waxa uuna yidhi waxba ma gadanaysid haddii aadan gadanayn waan tagay sidii ayuuna kaga soo dhaqaaqay codkii Xuseen weli waa uu qeylaya waxaana leeyahay ayaa u baahan raashin duqdan waayeesha ayaa maqashay waxayna u timid odaygeedii waxa ay ku tiri waxa aan kuu sheegayaa odaygaygiiow in la wareejinayo raashin gurigeennana wax raashina ma yaalo balse odaygii waxa uu ugu jawaabay xaaskaygii waa runta balse anigu wax lacaga ma hayo maxaan talow kaga gadanaa gaajo ayaaban kawlanahay labadeennu oo dhowr maalmood waxba maanaan cunin islaantii waxa ay tiri waxaa yaala gurigeenna saxan qadiimiya saxankaas ayaan tusaynaa ninka haddii uu anfacayo haynoogu bedelo markaasi raashin kabacdi sidii ayay isla qaateen waxayna soo qaadeen saxankii ninkii ayay u yeedheen waxa ay ku dhaheen wiilkaygiyo waxaan u baahannahay raashin wax lacagana gacanta kuma hayno balse waxa aan rabnaa saxankan qadiimiga ah haddii uu ku anfacayo in aad nagaga gadid waxoogaa raashin ah ninkii saxankii ayuu soo qaaday Xuseen waxa uuna yidhi saxankan aniga ima anfacayo raashinkayga ayaaba ka qiimo badan oo aniga saxankani waxba iima tarayo ayuu yidhi balse waxa uu soo qaaday shilin waa uuna ku xoqay saxankii waxa uuna ogaaday inuuba saxankani yahay saxan markaasi qaaliya oo dahaba isla markiiba waxaa ku soo dhacday inuu saxankani noqonayo kii uu ku taajiri lahaa maadaamuu saxankani yahay mid qalina uuna ahayn mid ciyaara balse Xuseen lexejecladiisii faraha badneed ayaa waxa uu ku yidhi odaygii islaantii anigu saxankan uma baahni isaga oo markaasi leh waad ku soo noqon doontaa bilaash ayaanad kaga qaadan doontaa lexejecladiisii ayaa ahayd mid halkaasi gaadhay waxa uuna rabayba saxanka inuu bilaash kaga qaato kani waa Xasan oo u wareejinaya raashinkii Xuseen saaxiibkii Xasan waa nin naxariis badan waxa uuna u yimiday odaygii islaantii isagoo u sheegay in uu raashin gadayo odaygii islaantii waxay ku dhaheen wiilkaygiyo wax lacaga ma haysano ayay ku dhaheen raashinna waan u baahannahay markaa maxaa xala ayay ku dhaheen wiilkayagii oo noo shaqayn jiray waa uu iga dhintay waxbana ma haysano Xasan waa uu beer jilicsanaa waxa uuna yidhi waan idin siinaya balse odaygii islaantii waxa ay dhaheen maya wiilkaygiio annaga ma rabno inaan ku dhibno balse waxa aan rabnaa saxan qadiimiya ayaan hayaa saxankaas haddii uu ku anfacayo inaad noogu beddeshid waxoogaa raashinaa waxa uu yidhi Xasan waa yahay saxankii ayuu sidoo kale waa uu xoqay shilin ayuu ku xoqay waxa uuna ogaaday in uu yahayba saxankani dahab odaygii islaantii ayuu u sheegay kama uusan qarinin oo waxa uu yidhi saxankani waa dahab idinka ayuuna idin anfacayaa ee gata balse odaygii islaantii waxay dhaheen annagu dad waaweyn oo gagaboobay ayaan nahay oo waayeela dahab iyo waxaas waxba kama garanayno keliya waxaa noo daran waxaan hadda cunno iska qaado wiilkaygiiow dahab iyo wax kastuu yahayba keliya annagu raashin unna sii
xasan waxa uu go'aan ku gaadhay inuu siiyo gebi ahaanba raashinkii uu iibinayay iyo lacagtii iskugu daro maadaama uu helay saxan qaaliya. Kani waa Xuseen oo markaasi islaantii iyo odaygii ku soo noqday rabana inuu ka qaato saxankii. Waxa uuna yidhi waan idiin soo noqday, waxaan idin siinayaa waxoogaa raashin ah ee balkeena saxankii qushii aan iska qaatee idinka ayaan idiin danaynayaaye. Odaygii islaantii waxa ay ku dhaheen waan ka xunnahay wiilkaygiiyow, wiil kale ayaa qaatay raashin badanna na siiyey, balse Xuseen waa uu isqoomameeyey. Waxa uuna eeday lixijecladiisii faraha badneed. Kani waa Xasan oo qaatay saxankii isla markaasna gatay. Waxa uuna noqday mid markaasi taajira oo noloshiisii isbedesho. Sheekadeenna intan ayay ku eg tahay daawade.